السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. isku soo noqod wanaagsan dhammaan waan idin salaamay walaalayaal wax yar baan rabay inaad ila dhageysataan insha Allah anigana wixii oon maaragtay advice ama talo idinka siin karo insha Allah maadaama hooyo ahay taasheed waxa waaye aniga waxa waaye nin baan kala tagnay bari hore like 8 sano ka hor ilmihiisa 1 cent ma sii dowlad baana bisho cayr waxa loo yaqaan dadka u yaqaan adigana waa taqaanaa kulay cayr baa ilmaha lagu koriyaa inta badan horta Soomaalida kuwa aniga hadda hayn ku koriyo 1 cent ma sii hatta ciidaha marmar bay ilmihii yara teenager ay noqdeen hadda 13 14 jir marka hadda dad kasta wareero roon way garanayaan aab waxa soo baahan ilmihii teenager marka noqdo ma aragtay waxyaalo badan telefoon waxbay rabaan moogtahay inkastoo aniga aan ka kaafiyay intii tabarteedu wixii la igu sii dawladda aan siiyo oo jecelahay inay heer sare ku noolaado ilmahayga iyo qalbiga iyo ma aragtay banaankana ka koriyo anyway adiga aabihii baa ka maqan aabihii way dayriyay sida 1 cent ma siiyo aniga mar maadaama waxba siin hatta uusan soo wicin aniga aan waxaan gaaray aniga dumar baa na ficil baa kale moogtahay aniga beenta ma sheego runtan ku sheegaya inaan gooyaan oo qabiilka ka saaro oo last name ka saaro gebigood baa aniga aan aktirkay ku qoro oo ku qori kara power baa haystaan ku qori kara laakiin diiniyan ka waran midaada kale adduunkan waxaan u jeclaa inuu dhinto sirac ku dhinto wuxuu ilaahay baa tarta dili kara ana ma dili kari laakiin waxaan jeclaa maanta adduunka waxaan u jeclaa in la soo sheego soo dhintay dhimashada waxa ka sii inuu sirac u dhintaan jeclaa bal arrinta ka waran I know horta inta aanu sheekhu hadlin kulli talu siinaya waa sheekh cilmi iyo yaqaano laakiin waxaan rabay inaan talo yar halkan ka siiyo gabadhaas ama gabdhaha Soomaaliyeed as hooyonimo as gabadh Soomaaliyeed anigu runtii hooyo aan ahay oo caruur baan haystaa caruurtaydana anaa soo korsaday maxay hayday keligii baa soo korsaday runtii mid aniga oo hal sano jirto midna caloosha 3 bilood jirto ayaan aabahood kala soo tegay oon wadanka nimaaday ka bacdina maad aragtay weligood reerka dhalay imana soo dabadabaysan meelaan dunida ka taaganhayna ima soo weydiinin laakiin marnaba aanu kuma fikirin inaan ilmahaas ka gooyo aabahood ama aan ka dhex saaro faamilkooda ama aan qabiilkooda ka tirtiro because end of the day ilmahani beri way korayaan arsaaqada ilaaha haya ilmahani beri way korayaan way weynaanayaan mar labena ilmaha marka la iskuursado ama la kala tago ama aabuhun baa koriya ama hooyadun baa koriya qasab maahina hooyadii aabuhu koriyaan ilmo badan waxa jira aabayaashu korsadaan ilmo badan waxa jira hooyashaashu korsadaan calafkii hadduu dhammaado ood qofkii kala tagtaan marleyba qof baa korinaya qofka ilmaha korinaya inuu qofka kale ugu fikiro inuu xumaan ku dhaco inay dhibaato ku dhacdo inuu maaragtay si xun u dhinto inuu ilaahay balaayo ku rido ma wanaagsana because ilmahan adigaba maanta aabihii hooya ku soo dhalay aabaha ma jeclid in maanta lagu dhaho hooyadaa tiraahdo aabaha ilaahay si xun ha u dilo ama waabaha kaa dhinto marka ilmahan inay mar walba aabihii ama hooyadii u noolaato oo maaragtay ilmahaasi uu helo hooyadii inay u noolaato ku faraxsanaan beri markuu weynaado hooyadii barto hadduu hooyadii la korin hadduu aabihii la korinna beritoole markuu aabihii arko wuu ku faraxsanaan wuu ku farxaya oo dee qof aabala weeyaan marka ilaahay ha u daysto hooyadood iyo aabahoodba adigu mar walba xumaan ha ku fikirin adduunka 4 beri baa la joogaa haddaa adiga xumaan qofka kale ugu fikirtid adaan meel gaadhayn waxaan xasuustaa gabadhaan darisnahay baa waxay haysatay ilmo aabahood ay kala soo tagtay markaasaa mar walba waxaan dhihi jiray ilmaha markay yaryaraayaan la xiriirsi aabayaashood ha wacaan ha la hadlaan wadankana way wada joogeen anu waaban kala maqnaynba aabahood saa ay tahay anuga aabahood asagaan soo raadinin ma ogyaan mar walba waan jeclaa inaan raadiyo markii dambena waan raadiyey waana u diray
wayna soo barteen faamilkooda dhan hooyo ayeeyooyinkood eedooyinkood aabahood kulli way soo wada barteen ayagoo qanacsanay ka yimaadeen marka iyaga waxay ku kacayaan marka ay dee aabahood kala kulmeen ayagay u taashaan laakiin waajibaadkii hooyanimo waan ka soo baxay ilmahayga inaan nolol qurux badan kusoo korsado weligay wiilka walaalkay xumaan ugu fikirin iyo dhibaato hadday marka ilmihii koreen ay soo caqliyeen inaan u diray soo bartaan waalidiintooda hooyo walbana aan saasaan kula taliyaa markaasaa gabadhii waxaan kula taliyey inay ilmahan maadaama aabahood wadanka la degan yahay inay la xidhiidhsiiso marmarka qaar hadday is arki karaan is arkaan maya bay tiri ma arki karo ma kanayn karo ma keerayn karo dee nin bilaadan adunbaa u fududeeya haddaad aabahood maad aragtay aad u ogolaan weyday ilmahaaga inuu la xidhiidho kabacdi kii aan la soo xidhin isagee u taala laakiin adigu mar walba xidhiidhsi raac wac u raadi jibaad wuu ka saaran yahay laakiin mar kale ayaa kasii wanaagsan oo laga fiiraya taas isagoo ilaahay kala xisaabtama isagoo shaqaysanaya waxaysta ilmahiisa hadduu wax siin waayo laakiin adigu ha u colaadinin inuu maanta waxba siin waayo adiga maanta wadan qurbo aabad joogta oo waxaabaad leedahay dowlad baa waxay siisaa dad waxaa jira wadamadeenii jooga aan dowladina wax siinin maanta ilmahoodana waxba u qabsan karayn oonaan caafimaad qabin haddana ilmahaasi si kastaba ha ahaate uu koro un oo ilmahaasi meel gaaro meel kasoo baxo beritoole marka waxaa la yidhi adiga waxaad fiirisaa dadka kaa koreeya ha fiirina dadka kaa hooseeya fiiri haddaad aragtid ilmo aabayaashood daadahaynayaan qasab maaha in ilmahaagana helaan aaba daadaheeya nasiibkooda hadduu u weeyey adigu waajibaadkii hooyanimo ka soo bax ilmahaaga dhinacaabiyo dhinacii hooyaba ka maxay hayday ha qabtir ilaahaagana bari adigana ilaaha kula korinayo ilaaha kula garab galaya qofkan bili-aadanna wuxuu galabsaday isagaa wandhay heli doonaa bas gabadhii sheekadii baan idiin soo kala dhaafee gabadhii way u diiday ilmihii marka ay soo gaadheen xoogaa teenager mid waliba suuqiisuu galay waayo wuxuu og yahay aabihiina inuuna daniyo muraad ka lahayn hooyaduna inayna daniyo muraad ka lahayn laakiin ad waxaad ka fikirtaa ilmahaagan in oo maaragtay qofkan lacag bayaanu ka heline ducada keliya hadduu xataa u duceeyo ayaa wax weyn ah ilmiya aabo weligaa ha ku fikirin inaad kala jarto ninkanna hadduu adigu furay ood kala tagteen ha u baryan ilaahay inay noloshiisa dhani baaba'do ha u baryan ilaahay qalbigiisa inuu ilmihiisa u soo jeediyo ilaahay ha u bari intaasaan tale idinku siinaye bal sheekhan ogaada insha allah waan dhegaysanaynaa insha allah isla socod wanaagsan allah baa xaqiiqada garanhaya sida aad sheegtaan u qaadano ayda ilaahay baa radul ficiliga aad samaysay ama waxa aad samaysay oo tiri dumar baan ahay oo ficil baan sameeyey midho wanaagsan iyo natiijo fiican kama dhalanayso absolutely marka koobaad waxaa tiri waxaan jeclaan lahaa inuu ninkaa dhinto weliba si xun u dhinto taada aabbahood wey horta inaad carruurtaada jeceshayna waan ogahay allahna subxaanahu wa tacaala asagaa garanaya inaad adigu hor dhiman iyo inaad adu hor dhiman iyo in asagu hor dhiman meesha lagu balansayana waa aakharo allaha maxkamadan cidda joogta waa allah liman ilmulku lyowm fursadda aan haysana maanta adduunyada waa intaan adduunyada joogno waxaana daawanaya 1,000 iyo ka badan qofna xumaan ilaahay dartii baan horta kugu weydiisanaynaa inaad maanta meeshan ku cafido maxaa yeelay cafiska ilaahay baa ammaanay qur-aanka inoogu taalla axaadiista inoogu taalla ilaahay baa darajaad sara ku siinaya awlaadaada oo goor aad ka dhiman aadan ka warhaynin waxay ku dambayn doonaan aadan ka warhaynin xataa inay asaga ku dambayn doonaan isaga xataa inay ku dambayn doonaan adoo indhahaagu shan yihiin markaasaas leeyahay indhahayga nagaan saarnay lagu markay weynaadaan hadhowto aabihii bay ku dambayn doonaan aadan ka warhaynin horta ilaahay dartii u cafi waa dalab aan rajaynayo anuu muqadimadii hore horta ka bixiyey maasha allah labo mawduucan aad tidhi in aan magaciisana si xun u dhinto inuu si xun ilaahay u dhinto maxaa yeelay ilaahay ha uga barya waxaa laga yaabaa intaad ka hormarto inay carruurta aabahood u baadaan ay mutaystaan waxaa laga yaabaa adigoo dee gaalo iyo adi inaad si xun u dhimato
adi inaad si xun u dhimataa laga yaaba intaad qof ilaahay si xun uga baryaysaduna u dhinto marka isaga qaladkuu galay ilaaha kala xisaabtami laakiin adiga qalad ha ka dabagelin waayo anigu maantaba ma jecli aabahay inuu maanta mahay koriya mayunay korinin taas aniga hawlii taalla maaha laakiin aabahay ma jecli inuu si xun u dhinto aabahay inay qodaxi muddo ma jecli ilmahaygana waxaan ogahay inay tabtaan aniga taaganaan aabahay ka taaganayn iyaguna ka taagan yihiin wayna maanta jeclayn aabahood inuu qodaxi muddo ma garatay ilmahan innagaa ifka keenay innagaa shalay nimankan isguursanay oo dhalnay waa inaa waajibaadkii hooyanimo iyo waajibaadkii aabanimo ka soo baxno ninkuna inuu naagta xagxigta maaha naagtuna inay ninka xagxigta maaha inay ilaahay uga barido xumaan maaha isagu inay ilaahay xumaan uga baryo maaha calafkii wuu dhammaaday waa la kala tegay haddii maanta wax kugu siiyo oo kula korsado alxamdulilah haddaad ka weydo alxamdulilah iida weyba ilmahan adaa ifka keena mas-uuliyadooda qaaday waa inaad adiga waajibaadkii hooyanimo kasoo baxdid oo ilmahaaga cidna u baahanin oo dhinac walba kaaha qabtirtid ilaahumaad canjeero u dubtid ood maanta banaanka ugu gadid yaa ilmahaaga waajibaadkooda inaad gudatid gabdhow waxaan iska dhaafa aad nimanka un ugu fikirayseen xumaanta nimanowna iska dhaafa xumaantaad hooyada ilmahaaga dhashay aad ugu fikiraysaan qofkan ilaahay ku dhaaf ilaahay haddaad ku dhaaftid isagaaba adduunka looga jari haddaan adduunka looga jarina aakhiraa looga jaraya intaasa kusoo gebagabinay videogeena insha allah subscribe like qisadan aada ii taabatay saa darteedaan si deg dega uga soo hadlay oo wallaahi sugi waayey horta ka bixiyey labo qabiilka ilaahay baa ka beliyey ma ka tirtiri kartid in aan magaciisana ka tirtiro qabiilkiisana aan ka tirtiro taas soo wanogay caraa kuu geynaysa waad xanaaqsan tahay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leh u toobad celi udcuuhum liaabaa'ihim caruurta aabbahood ugu yeedha qabiilkuna dembi ma gelin ayaguna dembi ma gelin aad kaga tirtirto asaga magaciisa haddaad wax idinka dhexeeya waa labadiinna adaa shalay aduguna guursaday magaciisa ma wadid haddii zaynab maxamed uu yidhaahdo asagana cabdullaahi faarax baa la dhaha oo qofka magaciisa lagu yeedhayo magaca aabihi aduumatii sida gaalada ilmahan gaalada waxba ma markay galabsan xaaskooda magacooda qaado adaa ninkan guursado Walaal ifka muslimiin baan keenay nahay. ilmahan waxaa weeyaan caruurtu dembi ma gelin ma laha aabbahood aad magacooda uga tirtirto absolutely qabiilla warkiisaba iskaba daaba ilaahay baa ka beera haddii aad ka tirtirto tir awood baan u leeyahay awooddaa waa wax yar oo xadidan oo bini aadam iyo waddankaad joogtaa awoodda ilaaha ka weyn laakiin ilaahay baa ka awood badan absolutely kitaabka ilaahay baa ka awood badan absolutely qof muslimaa tahay sunnada nebi maxamed baa ka awood badan sal ly salam islaamnimadaadaa ka awood badan oo ku celinaysa wallah way taabatay qisada sharcigu wuxuusan kuu banaynin ayadaa kaa celinaysa awooddu waa middaa laakiin qofka duudha waxaa rabaan samayn awood baan u leh ciddaan doonaan feer ku dhufan awood baan u leh taama socoto mid intaaba ka weyn baa muslimiin baan jira nahay xuduud baan leedahay absolutely saddex qodob baan marka kaa codsanaya adigana caafimaad aan kuu fiican awlaadaadana u wanaagsan annagana qalbiga annaga u fiican kow ninkaa walaalka ilaahay dartii u cafi mujarad inuu caruurtaa ilaahay kaa siiye aad jeceshahay wax kalebadaad ku cafin weyda ku cafi awlaadda ku tad cafi caruurtaadaba jecesha صح waa qodob qodobka labaad ha ka bedelin magacooda magaca aabbaha walaa qabiilkiisa maya iyo wax ku xiran dhagayso oo sharci dartiis ku xiran buusan hataa salaamu calaykum arrintaada ka hor imuu dhiifi ka fiicnow ka fiicnow ka fiicnow kowdhe ka fiicnow waxaas qaladkay gashay gabadhan fiir kastrig 100% anaa haysto boqolkiiba boqol kastrig anaa haysto Anaa isku qoray. ma joogno isku wadanna ma joogno maanta haddii aniga waxay ku dhacaan waa runtaa haddii ani maanta iyo wax waxay tiri ilmaha 100% anaa isku qoray bay tiri isaga waan ka tirtiray qaadan ilmahayga because qof kale kuma qorno ilmahayga aniga bas ku qoran automatically midan gaala hataa asaga hadduu qaadanayso imaada hataa ma la siinayo because kumaba qornabo aniga kastriga buuxa haysto maxkamad ba iyo aan markaan Aan iska kaga furayay saxeexay sharci ahaan everything. legal of marriage ahayn markaan iska furayay oon divorce ku sameeyey looyaro u qaatay baa aniga ku qoray ilmahayga qof kale Soomaalida maanta caqli kuma darana. qorno ehel kale kuma qorno cid kale kuma qorno maanta haddii aan waxay gaaraan dhaktar galo automatic Really? haba qaadaysa arrintaa waan saxaynaa okay maxaa faa'iido ah hadda ilmaha 100% intaan ani isku qoro inayna ilmahayga cid lahayn ani berri hadduu wax igu dhaco ile nafta lamaan ballamine gaalo automatically ilmahayga qaato aabahood la siin waayo maxaan ka istafiiday ilmahaasi inuu gaal noqonayo soomaaliya fikira waxaad sameynaysiin
kolkan ani nin la ficiltamaya ilmahayga maan ka fikiray waxa ay ku dambeyn doonaan gabdhaha Soomaaliyeed waxa aad sameynaysiin ka fikiro waxa weeye wax cirib xumo idinka iyo ilmihiinaba idinku dhacay ilmahan waa jaahil suldaan ilmahan adaa ifka keenay wuxuu galabsaday malaha inaa maalinta gaala qaadato gaala afka uga geliso xaq baahan aabahooda noolo ifka jooga dib malaha waxaan iska dhamaanaya dagaalkan iyo waxaan labadiina inaga dhaxaysa ilmahan waxba ma galabsanin war caqli xuma inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un ila oo idin soo haday wax kale oo ma garanayo subhana wa qadir wallahi billahi wax laga yaabo oo mucjiso awey mar kale aan ku soo noqdo wadamada reer galbeedka hadda laga warhaysaan dadka ku noolaabaan kamid ah inka Sudan Turki joogo laakiin dad ka warhaysaan wadamada inaan shuruucdooda aan ka warhayo ninka horta duu wadan joogo wadamadan galbeedka duu joogo horta dawladda lacagta ka soo jarta automatic baa looga soo jaraa taasi Charles Abbott dalban kartaa waa mas'ala gooni ah laakiin adiga marka dawladii baa ku goynaysa ala kulli xaal adiga baa lagu qorayaa deyn iyo riba fuulaysa taasoo waa shuruucda wadanka wax ka naqaana way taa waa qodobka labaad hooyada iyo aabuhu haday ilmaha isku qabsadaan waxa laga wada hadlaa yaa qaadanaya mas'uuliyadda haddii uusan jirin wax looga qaado labada waalid mid kamida mas'uuliyadda sida inuu waasho xanuunsan yahay sida inuu dilo ay caddaato ashyaa waxaa jira haddii dawladdii ay kumuunihii iyo booliskii iyo dadkii wax baadhayay ay ku qanci karaan qofkan in mas'uuliyadda laga qaado way dhici kartaa labada qof marka in mas'uuliyadda la siiyo wataa waan ognay laakiin ninkii hadduusan waalayn hadduusan dil caddaan ahoo hadda dhib weyn oo dawladdu ay ogtahay inaan qofka loo faragelin karin hadduusan ilmihii faraxumayn uu faraxumeeyeen wadamada waan ka warraynaa waa aabayaal ilmaha faraxumeeyeen haddaan kiiska lagu soo oogin dee nin cararay unbaad ka faa'iidaysatay baa la dhihi karaa oo wadanka ka maqane asal inaad labadiina ku qoraataan waaye haddana waxaan kugula tagin oon taladaydii hore ku soo celin ilmaha buhud ku qor ilaahay dhabarka iyaga gaala kama beere caruurta ilaahay awlaadan dhalay gaala nagama siiya buhud ku qor weliba magaciisa ku qor mas-uuliyadda aabaha wax ka sii badbaadi hadda adigii baa afka ka qiranaya maxaa la yidhahdaa hadday tii alla igu timaado caruurtii gaala qaadanaysa arrintaa raalli kama nihin mana ku faraxsanin waana qalbiga nagana raad bay ku reebaysaa waan kuu ducaynaynaa taleefonkayga qaado ila soo hadal ducaan kuugu daraynaa intaas war intiinan gabadhaa duco aamiin u dhaha ilaahay waxaan kuu weydiiyey jalla jalaaluhu inuu culayska uu kaa qaado oo uu kurbada kaa qaado oo walwalka uu kaa qaado oo ilma cimri dheer iyo cibaado wanaagsan kugu isku daro oo ilaahay subxaanahu wa tacaala caruurtaadana kuu xifdiyo mid ka maarantana waxa aad tabaysana ilaahay uu kaa dhiga subxaanahu wa tacaala intana qofa aamiin kuu dhahaysa waan kuu ducaynaynaa 3 qodob bay ahaayeen 4 baan hadda kaaga dhignay qodobka koowaad iska cafi walaalka qodobka labaad caruurta magaciisa iyo qabiilkiisa ka tirtirin qodobka saddexaad sixin inuu u dhinto hatamaniin qodobkan afraadna oo hadda soo baxayna nafi inta inay jirto lama yaqaano ee adoo caruurta badbaadinaya odagii ku qor caruurta magaco inaad waanada naga qaadato inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un ilaahay soo hadeeyo soo hanuuniyo iyada iyo gabdhaha Soomaaliyeedba wixii qalad ku fikirayaba ilmahani end of the day waa aabahood lala xiriirsiiyo ha lagu xidho idinka waxaad ku kala tagteen idinka idinta laakiin end of the day ilmahani waa aabahood saadadii u dhasho u dhalay saadii ugu damqanayso ugu damqanaya hadduu isagu waxba tari waayo ilmihiisa danayn waayo isaga ilaahay maalinta qiyaamaha ka goynaya adi laakiin waajibaadkaagii ka soo baxa insha Allah